السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلمتي وعن أصحابتي ذا خالقة channel كان داون سنوات ليعة official ما أنت واحد إذا سوق بنتنا خير كم إذا هنولشيده يومش أمانة أن تاجنا هاي وحنا كل على استواها أي تهاي ما دام أنا هنجري سكولي عيال بنوني حافظ بدن أوريم مقدشنا أنا سود دقي ضد كخار وأنا أو عمامة دايو مدحو ذا عمامات أثرتها سيدا قليرة أسكمل وذا جوج جرتين dhalinyarada iskuulka ahaan jirteen garbahaga fadhin jiray dhalinyaro marka tahay oo daayarna aad tahay oo kubadda banooniga lagu wada xifaaltamayo yaa macalinku ahaan jiray ciyaartooyda kula soo dheeri jirtay rag maanta kubaddaas heer ka gaaray oo qaarkood xitaa xulka qaranka Soomaaliya u dheelay iyo kooxaha kuwa waaweyn ee seeraada u dheelay iyo macallimiinteedii iskuulka waa adiga qayb kamid ah nolosheeda ma aysan dhicin mar in aan soo fadhiisto oo aan ka hadlo barnaamij noocan oo kala ah waxaan ku jeclaystay waxa ay tahay maadaama aan faniskayga tihiin aad u fara badan ay ugu xiran yihiin in ay ogaadaan liicaad wax uu yahay ee meesha uu ka imaaday iyo halka uu ku dhashay iyo degmada uu ka soo jeedo halkee isku baranay saaxiibadeyda qaaliga ee maanta garbahayga taagan Muniir iyo Lucky barnaamijyadaas oo kala dhan waan soo wada badin doonaa qayb ayaan ka soo dhigay ugu horeen aniga hadda isguda galaba waxaan ahaa arday wax ka baran jiray iskuulka SYL 2010 2011 ilaa 2016 ilaa 2017 dhamaadkii waxaan ahaa ardayda ugu firfircoon iskuulka ama fasalka دنا كلية أفصل اللي قبل معناها أنا جب أنا أوجهاي سكولكم ماشي بارت 5 هولوداك SYL هولوداك بارت 5 أيوة كلية أفصل اللي قبل لعبة واحد يوصل بيري ويل أن يلود الدوني مرنبا أنت أساسا اسمه كرسي أنسوء هانجرني واحد لقوم مقعبة يوسف سعيد محمود وأرضي آد خالي يوقع هذا المقدشو ولي كتن بيا وشام عنا كديت إن شاء الله نلاشكم عيش برادر فصلنا مركا أي معلمين تكجران مسا أي ترتن لسمينا يو ووقتها فصل مركا A أما B وكله ترتنا ودحين ay waliba dhalinyarada ay saaxiib ay yihiin oo aysan kala maarmin waliba qaarkood isku sarir ay ka soo kacaan si ay isku xifaaltamaan heerkaas waxbarasho halkan waxa ka salaamaya macallimiinteeda aad ku qaali ah ustaad wali kamid ahaan jiray oo hadda noqday maamulaha ugu weyn ee iskuulka Party 5 sidoo kale maamulihii hore waan salaamaya ustaad Cabdirashiid ustaad Cabdullaahi Suldaan sidoo kale waxaan salaamaya macallin Baaruud asagana macallimiin aan inta aan ku soo wada koobi karin qaarkood dibadaha aaday oo wali Party 5 ku dabay macallin aadan oo kala kamid ah from Kenya dhammaan aad u salaamaya barnaamijkan waxa ugu dalnaya waxa ay tahay qayb kamid ah nolosheeda ma aysan dhicin mar in aniga inta soo fadhiisto oo aan ka hadlo aniga waxaan ahay meeshan waxaan ku soo bilaabay maanta magaca aniga aan sameeyay sidoo niyadeyda micnaha ay ku soo gashay sidee aan ku bilaabay in aan noqdo qof farxaan ah aniga waxaan ahaan jiray qof riwaayadaha iskuulka ka sameeyo kuwa loogu jecel yahay ardayda hadda taqaanid marka fasalka lagu jiro qof dhib badan ah jiro 24 saac qof ka dhiban mar madaxa ka taabta mar qalinka ka xada mar micnaha qof garabkiisa fadhiya xifaaleeya macallinka inta yarta uu maqan yahay qofkana sii ceyn jiray micnaha anagu waalidkiisa aan gaari jirin waxa ceyn jiray micnaha qofka garabkiisa fadhiya xifaala caadi dhalinyarnimo fasalku waa la wada qosli jiray wiilal iyo gabdhaba ugu dambeyn macallimiinta qaar waxaa jira aad u kaftan badan oo nagu dhex jiri jiray markay arkeen markaas hadalka aan ridayo in lagu wada qoslayo waxa la ii gartay riwaayadda ugu horeysay iskuulka in la ii doorto oo la riwaayadaas sameyn doonto riwaayadaasna waxa liigu matalay Mooriyaan dhacaya walaashiis macla aabiis macla familka dhan badhacaya qoraya lii dhiibay inta waa caleemo la ii saaray teeta beebo baa loo maraa halka lagu xiray adiga daan sameyn jiray ilaa alaan kana way daba socotaa waxaas waa talent aniga talent ayaan u lahaa in aan sameeyo arrinka ayada ah hadda markii aan sameynayo janaalada aad ka arkaysiin riwaayad ama markay tahay markii la hadlayo telephone vlog la sameynayo dadka qaar niyadooda waxa ku jiro lii waa wili daayar muusan qaan gaarin wili waa 15 jir ama 13 jir oo kale sababtaasna waxa ay tahay waxa keenayo marka aan video sameynayo waa is farxad galiyaasi qofka aniga i daawanaya oo farxad galiyo ayaga laakiin dadka qaarkood ma dareensana aniga hadda hadii aan ku nolosheeda reality-ga waa kan oo ku hortaaganahay waan iska dhigi karaa qof shibana hadalna ku sheegi karaa laakiin markii aan rabo in aan ka qoslinayo waxa igu soo dhacayo saaxadii iskuulka markaan dadka ka qoslin jiray oo maamooyin iyo aabayaal iyo walaal iyo ardadii kulligoodii aan ka qoslin jiray igu soo dhacay marka halkaas aan ka soo qaatay waan riyooyin aniga aan lahaa in aan iskuulka markaan dhameeyo kadib aan tago dalka Kenya halkaasna magac ka sameeyo bulshada dhexdeeda anigu wax idab dara aan sameeyninba talentiga aniga aan lahaan aan u soo saaro bulshada
maantana waa dhihaysatiin waxaan ahaa wiilkiina weli halkan waxaa uga mahadcelinayaa kaabagalaaskayga aan marnaba iloobi doonin mar walbana aniga markii la sameynayo kale shil iskuulka markii la sameynayo qofka ugu horeeya uu wadan jiray ayaan ahaan jiray mase markii taabuurka la iskaga wacayo qofka koowaad uu aniga uu wadan jiray ahaan jiray waxaa lagu magacaabaa xasan yaasiin axmed cadaawe asagana halkaas muqdisho ayuu ku dambeeya sawirkiisana waad arki doontiin waa kan halkan idin saaran waa kaabagalaaskayga waxaan leeyahay horu soco sidoo kale macallimiinteedu waa salaamaya waxaa halkan ka salaamaya asxaabteeda qaar ee kubadda cagta aniga waxaan joogi jiray degmada Hulwadaag gaar ahaan xaafadda Tokyo ayaan deganaan jiray ugu dambeyn waan ka guuray waxaan degay warta nabadda xaafadda Laba Dhagax sidoo kale waxa aniga ku dhashay waan ku soo barbaaray degmada Yaaqshiid xaafadda hadda ugu dambeeyay aan degnaa saddexdaas degmo ayaan degnaan jiray waliba aan ka ahaan jiray dhanka banooniga waxaan ahaa nin 24 saac banooni u heelan waxa saan iga dhigaba waa banooni waxaa halkan ugu hambalyeynaya dhammaan asxaabteeda qaar sawirka halka idin saaran waa teamka Tokyo oo ugu horeeyay oo aniga aan ka tirsanaan jiray rag lagu aasaasana kamid ahaan jiray waxaa iga muuqda halkan macallinkayga imka asi wali Muqdisho ku dambeeya Iman Cali Daahir ayaa la yiraahdaa asin macallinkayga sidoo kale macallinkii koowaad isoo garab qabtay in badan isoo garab taagnaan jiray waxa lagu magacaabay Ismaajir ciyaaryahankii kooxda Midnimo sidoo kale halkan waxaa ku xusan dhalinyaro maanta ka tirsan seeraada waxaa kamid ah Saadaq oo ugu dambeyn aan ku ogaa kooxda LBP Kenya sidoo kale waxaa ku jira halkan Maxamed Shoode oo aan ku ogaa kooxda Tagada Captain Sule asagana waan salaamaya kabtankeyga labaad Cabdikariin yarkan hoos fadhiyo waa asagana kabtankeyga koowaad team Tokyo in badan ba aan soo wada dheelno oo aan ku jiri jiray waa team aan magac ka sameeyay dhalinyaro kale waxaa jiro aan wada xifaaltami jirnay waxaa kamid ahaa team xaafadaha markii la isku baxayo xalwada markay tahay masalcad ay taalo daafaca ugu necba sawira laga qaado wallahi nin agool aan ka dhigay horta nooba laga boqo waan ahaan jiray oo degmada Hulwadaag aad looga cabsado anigoo waliba aad caato ah marka nin waa iska diyaarsan ahayo macallimiinta aad bay jeclaan jiray habeenka markaa badinna والله واحد سوستا مو فايل سوسين جري اللي وضو عاسلي معصر اللي يقدر يجري سامعنا حب وسياش وين اللي قلت تستاهل عنجري يركع دافع يبو عتكا السمر أنا مرنا اللي بدون يسوي كيسوان هيا جيميل كيجان حالك نحلي يركع لو قمك عبهند دقمة هو لو داين دافع وهانجري سانت كيهوري 2016 كسر رجيني وانين عاد وحوجنو ديار سن وطاقة لما بدأ فبا asagana insha Allah sawirkiisa waa aragteen waan aad u jeclaa waliin aawad xariirno waxa halkan ugu mahadcelinayaa sidoo kale teamkii FC Caano oo lagu magacaabo team Laba Dhagax ee warta nabadda ka dhisnaa saaxiibkii dhagax karshe iyo Xayad Daahir Culuw iyo Xuseenba saddexdan ila sawiran aad baa u salaamaya waan jeclahay waliina way nool yihiin Ilaahay idinku amaansado Muqdisho iyo Xayad wuxuu noqday abwaan maanta sameeya ama qora buugaagta qora ayuu noqday sidoo kale ninkan aad u jeedina magac kaliya Allah saaxiibkii qaaliga aad baa u salaamanaya engineer sidoo kale Xuseen guurkay waa ka soo daay Nairobi ku jooga hambalyo ku leeyahay aqyaar aan aad iyo aad aan soo koobi karin insha Allah barnaamijkan waxaan ka sameyn doonaa part 1 part 2 part 3 iskuulkii markuu noo dhamaaday kadib waxaan go'aansaday in aad arigaas iyo Kenya yaan iloobin sidoo kale team Yaaqshiid markaan ku soo laabtay ragga aan aad ku jeclaan jiray oo mar walba asas socon jirno kubadda cagta waxaa kamid ahaa Captain Briqi oo hadda ah sanadkan u dheelay degmada Hodan waa nin saaxiibkay aan aad u jeclahay horumar waxaan ay ku leeyahay heerka taagantaa maanta oo ku faraxsanahay sidoo kale waxaan aad u salaamayaa saaxiibkayga Aamin iyo Bishaaraysto oo ahaa dhalinyaro aan isla soo barbaarnay isku kooxna ahaan jirnay ayagana kubaddooda heer ay ka gaareen anigana kulli hamigeygu wuxuu ahaa in aan talentigan ugu jiro ah in aan bulsho ka qosli karo aan dadku u soo bandhigo wariye aan lahaa sidoo kale waxaa halkan ka salaamaya team lagu magacaabo FC Tsunami oo macallin u yahay Cukaash oo ah macallin aad micnaha u adagoo ciyaaryahan ah hadana isla xifaaltan jirnay كل نوع على وعها وحواس آخر بدي إن شاء الله سورنا هالكم بعدين سوساري دونا لأن يرانا قانا كتير سيدو كله
reer xamar jadiid ayagana waan salaamaya oo waxa ciyaariyaan ayagana dhanka reer xamar jadiid aan ka tirsanahay oo xamar jadiid waan soo maray waa degnaan jiray ayadana ugu dambeyn iskuulkii markuu ii dhamaaday aniga riyooyin far badan ayaan lahaa alxamdulilah maanta qaarkood waa ii hirgaleen waxaan imaaday dalka Kenya waxa kaliya oo aan jeclaan jiray in aan la kulmo dadka aniga markaas taageeraha aan u ahaan jiray waxaan halkaan micnaha aan ka iloobo aan ka tagay saaxiibkayga qaaliga fanaan ugu qaalina ah waxa lagu magacaabaa Siciid Taariikh oo aysiisa aad u jeceshihiin qarnimo ka xayaada xurnimo ka xayaada aniga Muqdisho markaan joogi jiray waan taageeri jiray waxaan jeclaan jiray mar in aan la kulmo fanaankaasi waan la kulmay sawirkiisana waa kana qofka bil aadanka libintiisa waa la siiyaa oo hadduu maanta ka magac sareeyo adiga waagaas aad magac lahayn ciyaartooyda waa daawatiin Ronaldo Cristiano Ronaldo oo la sawiran waa aragteen Mbappe oo gacanta uu ka hayo sidoo kale waa sidaas oo kale saxada ayadana bulshada marka wax u soo bandhigayso ani talentigan inuu igu jiro waan ogaa oo mar aan noqon doono qof bulshada caan ku ah Siciid Taariikh aad baan u salaamaya fanaankayga hore u socayaan ku leeyahay asaga muusan ogeyn aniga sawir inaan la galay oo maanta qofkan bulshada magaca ka dhex sameeyay ima uusan aqoonsanayn hadeertaan laakiin xalaa mar aan la xiriiray ayaan u sheegay markaas madaxa gacmaha saartay macquul la noqon weysay taasna xusmad aad weyn ay tahay inaan qofka ka magac sareeyay waagaas waliba aad kaaga weyn in aad sawir la gasho marka adiga mar un horumar aad gaartana aad tusto sawirkaasi xasuusta aad ka heysay in aad taageeri jirtay sidoo kale waxaan aad u taageeri jiray oo noobaha aan ku dayin jiray mar una noobihii hore ee kooxda Saxafi bil Muxiidiin waa qof aan aad u jeclahay sidoo kale wariyaasha magaalada Muqdisho gabadhii ugu horeysay ee wareysatan waxa lagu magacaabaa Naciima Cabdullaahi Magan oo u shaqeysa Gool FM insha Allah barnaamijkan waan soo badin doonaa hilmaami hadal kuma jiro haddii aan ka tagay xumaan kaaga ma tagin maskaxdii ayaa iga yaqday maadaama aan qof fanis badan leh ha ii qabanin insha Allah barnaamijkan waa soo badin doonaa halkan waxaan uga tagay oo barnaamijkan in aan ku soo daro muhiim ah laba ciyaaryahan ama saddex ciyaaryahan oo aniga kaab isla dheelnay oo waliba xulka qaranka Soomaaliya ka tirsan waxa kamid ahaa ninkan daafaca aad u jeedin sida Cali Baana lagu magacaabo maanta waagaas imuusa garanay laakiin si fiican u yaqaana aad ayaan u salaamaya horumar waxaan ayaa ku leeyahay sidoo kale noobihii kooxda dekada asagana maslax waan jeclahay waan in laacib farta ka xiran asna aad u salaamaya sawirkan waxa ugu xusan Cabdisaaq oo ah abtigay walaalkay Alif iyo saaxiibkayga Maxamed Salaad iyo Captain Birlo insha Allah fiidiyoasha kale oo xiga ayaa idin soo gali doona waa mahadsantihiin Kenya markaan tagay maxaan kala kulmay sidee magacaan ku sameeyay sidee aniga u soo shacbaxay dhalinyarada aan jeclaan jiray caanka ahaa waagaasi Nairobi ku sugan sidee ula kulmay iyo fanaaniinta insha Allah wala socon doontiin biri ayaan soo galin doonaa video noocan kulanti wacan ee idin